wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dalka Britain Mark Simon ayaa waxa uu telefishinkan caalamiga Universal uu siiyay wareysi gaar ah wareysigaasna waxa la yeeshay waryaheena Cabdixafiid Maxamuud Jaamac waxaana u dhacay sidan. Thank you for being on Universal today, Minister. Can I ask you aad baad ugu mahadsantahay inaad naga aqbasho wareysigan. Muxuu yahay farqiga u dhaxeeya shirkii hore ee Soomaalida loogu qabtay London iyo shirkan loo qaban doono bisha May ee sanadkan? Waxaa jira isbeddello la taaban karo oo dhacay tan iyo markii la qabtay shirkii Soomaalida ee lagu qabtay magaalada London oo ay kamid ahaayeen dhisitaanka dawladda Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo waliba dawladdiisa, hirgelinta baarlamaanka, horumarinta laga sameeyay iyo waliba isku imaanshaha ay beesha caalamka iskugu timid inay taageerto dawladda Soomaaliya. balse shirkan la qaban doono bisha May ee soo socda oo uu ka duwan yahay shirkii hore waxaana si wada jir u hogaamin doona dawladda Ingiriiska iyo madaxweynaha Soomaaliya. waxaa jiri doona in muhiimad la siin doono codsiga dawladda Soomaaliya oo ay kamid tahay xagga amniga, dhisitaanka nidaam cadaalad ah, horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada iyo sidoo kale samaynta nidaam cad oo muuqda oo ay wadamada deeq-bixiyaashu ay aamini karaan. sidaad ogtahay waxa wadanka jooga al-shabaab oo ah kuwa mar waliba wax qarxiya ee sidee ayaad u wajihi doontaan. waxa muhiim ah inay xusid mudan tahay in la xuso in ciidamada AMISOM ay kaalin wanaagsan ka qaateen ka saaritaanka al-shabaab laga saaray deegaanada iyo gobollo badan. waxaan iminkaan doonaynaa in baasha caalamku ay taageerto dawladda Soomaaliya oo ay ka taageerto dhisitaanka ciidamada si ciidamada dawladda Soomaaliya oo helaan awood buuxda iyo sidoo kale inaynu ka taageerno xagga dhaqaalaha. waxaad nooga warantaa arinta Soomaaliland iyo ka soo qaybgalkeeda ku aadan shirka bisha May lagu qaban doono magaalada London. Somaliland attended and played a very positive role in last year's conference. We very much hope they will attend this year and we are discussing with the federal government of Somalia alongside the government of our government in the United Kingdom as to exactly who will be invited, but I hope there will be representation from Somaliland. Somaliland waxay ka soo qayb gashay shirkii hore ee lagu qabtay London ee sanadkii tagay waxayna ka qaadatay shirka qayb muhiim ah. waxaan dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ingiriiska kala hadli doonaa dadka la casuumi doono balse waxaan rajaynaynaa inay jiri doonaan dad matali doona Soomaaliland. waa maxay doorka ay qurbo joogto ka qaadan karaan dib u soo celinta nabadda Soomaaliya? waxaan filaynaa in qurbo joogto ay kaalin muhiim ah ka qaadan karto dib u soo celinta nabadda haddii ahaan lahayd qurbo joogto ku nool UK ama wadamada kale. qurbo joogto Soomaaliyeed waa dad in badan oo kamid ah ay yihiin kuwa qayb weyn ka qaadan kara dib u soo celinta nidaamka iyo guud ahaan nabadda Soomaaliya. aan sidoo kale rajaynayno in qurbo joogto ay ganacsigooda iyo aqoonta ay leeyihiin intaba ay dib ugu celin karaan ama ay ugu celin doonaan